صفيقة سلحي كتالي نبضي سماها ونقو سلطان اسكو سبب الشدا الكات سيدنا سحل ماهاي كرس حفيو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنو ونكسن دمانبا أخيارتي ذا هاي شرفت بدن إستوسكا هو ذا نوغا داوانيو كسو دوادا برنامج كيني فرينتا صحفيغا برنامج كان برنامج تضبا الله هاد يشيرنا أن كوريسنو صحفيين تواوين الرقعة داقا أنو أرقنو إناي تن إيسان الضبطان إنتي هانا قادين ميكروفون كوستين دانها برشدة إيسيدا هوغاها قبتير لايين وراركي برنامجيدا bulshadooda barnaamijkeenan fariinta suxufiga oo toddobaadkiiba ka daawataan TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta iyo toddobaadkan iigu martiya wariye weyn oo tan iyo maalintii uu hana qaaday saxaafadda laamaheeda kala gedisan dhinaca wararka iyo barnaamijyadaba ka qabtiri jiray dhammaanba bulshada Soomaaliland iyo bulshadii hore ee labadii wadan ee midoobay la isku oran jiray Soomaaliya ووريا عانا دمانتنا برشة Somaliland وضع تقارنو ومحمد حسين علي وتضباط كان نصيبه هلي إن أنكو رئيستو برنامج فرينتا صحفيغا كسولو محمد حسين علي برنامج فرينتا صحفيغا عبد الله عبد علي آدي آدواد ما تنتهي ونكو وين آدي أنكوغا همبليينيا شرف وين يتهي محمد حسين ووريا شروع عداغان كودين جيري صحافتنا أنيغا انتي أن سو غلي يقول يريغليي إن أن مانتا وريسغان aan la yeesho maxamed xuseen cali hadii inta aan ka aqaano aan halkan idinka tilmaamo maxamed xuseen cali waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadadii dabayaaqadii lixdamaadkii waxaanu dugsiga hoose dhexe uu ku dhameystay dugsiga biyo dhacay ee magaalada Hargeysa maxamed xuseen cali waxa uu uga gudbay secondary schoolkiisii dugsiga Faarax Umar oo halkaasi uu kaga qalin jabiyay فالهدف محمد صحافة waxa uu soo galay isagoo aan dugsiga sare soo galin oo dugsiga dhexe ku jira falhadaba intii aan ka tagay maxamed aan weydiiyo maxamed intaasi maxaad halkaasi noogu daray Cabdullaahi Cabdi Cali aad iyo aad baad u baadsan tahay adigu suxufi waayaraga ayaa tahay Nairobi aad ka soo warrami jirtay dadka waliba waxaad dheer tahay nin fankana dhinac kaga jira ayaa tahay dadka aan ku sii bare oo dhinaca kalena suugaanyahana oo xayeysiisada si xoog ah u sameeya lixdamaadkii dabayaaqadii marka la yiraahdo waxa laga yaabaa inay dadku isiraahdaan taluma lixda kiibayo waxa weeyaan tusaalahaan toddobaadkii ka hor ama waqtiyadan dhashay waxa 8 dabayaaqadiisii ilaa horaantii 9 meelaha san filaya sida hooyaday ii sheegtay waxbarashadayda waad sheegtay laakiin sanadkii 84 ilaa 85 ayaa ardaydii ugu sareysay gobolada waqooyi baa loo jiray markaasi ama Somaliland ay gobolada waqooyi dalkii Soomaaliya isku oran jiray ama Soomaaliya oo dhan marka la eego waxa laga dhigay macallimiin dadna waxa kamid noqday ardaydii ugu sareysay macallin baan noqday national service-kii qaarna gurmud bay galeen qaarna national service-kii waxay galeen macallimiin dadna waxaan macallin ka noqday iskuuladii aan ka soo baxay biyo dhacay macallin ka noqday anigoo biyo dhacay macallinka iyo anigoo biyo dhacay arday ka ahba wasaaradda warfaafinta waan ka shaqeynayay anigoo dugsiga dhexe dhigta ayaa wasaaradda warfaafinta aan ku soo biiray dugsiga dhexe anigoo dhigta laakiin se waxbarashadeeda haddaan sii wado 1986 markii national service-kii aan dhamaystay ama shaqo qarantii waxa aan galay oo ilaa 88 aan waday kulliyadda waxbarashada ee la foole waxa la qortaa marka GC-ga imtixaanka la galo GC-gu soo baxo imtixaanka jaamacadda marka loo fariisto waxa lagu siinayaa foomka aad buuxinayso waxaad ku qoraysaa waxa lagu kala dooransiinayaa laba wax jaamacadda doonayso in aad gasho ee doonayso aad kow ka dhigato haddaad jaamacadda weydo talabaad yatana waxaan ka dhigtay kow medicine-ka أنا نصيب دروا وين مدرسينكي يمكن ما صبحين
deetna lambar 2gana waxaan ka dhigtay la foolaa deetna ii soo boday la foolaan galay majorkayguna history ahaa minorkayga English baan ka dhigtay markii hore geography aan ka dhigtay laakiin markii dambe waan bedeshay walow niman suxufiyiin oo markaas Umar Aadan Qadir rag badan oo kulliyadii saxaafadda haysan jiray Xuseen Cali Nuur oo macallin ka ahaa rag fara badan ayaa igula taliyay Faisal Fadlo markii dambe isduuha barnaamijyada ka ahaa in telefishinka Xamar oo isna la soo shaqeeyay ay igula taliyeen in aan saxaafadda ku soo wareego oo wax ka barto laakiin se haddana waxa la foolaa ayaan markaas aan u sii jeclayso inaan qof noqdo historically de xagga taariikhda u dhun daloola deetana iyada oo ay jaamacaddii aan muddo 3 sano ku dhawaada dhiganaya ayaa dagaaladii bilaabmeen waad garan kartaa duruufta iyo nolosha markaasi siday isku bedelayso marka dadkaagii iyo dhulkaagii dagaal ay ka dhacaan dadkaagii ay qaxaan walaalada oo anigu de waalid oo aabahay u dhintay oo anigu aan u shaqeynayay xaaladooda markaas aan garan karo waxa ku dhici ama ay ku sugan yihiin deetana waan ka soo baxsaday deetna Djibouti aan galay deetna Djibouti anigoo jooga ayaa deetna kulay saasan markii dambe kaga yimid waayahay Maxamed inta inaan ay dheerkii soo gaarin bulshadu waxay isweydiinayaan Maxamed waxa uu sheegay isagoo dugsiga dhexe dhigta inuu saxaafad soo galay sidee bay markaa macquul u tahay adigoo arday waliba aad secondary soo galay dugsiga dhexe ah maadaama ay jiraan qaar secondary u jira part time sameey jiray oo wariyaal badan ay saa ku soo galeen laakiin adigu waad ka sii grade hooseysaaba adigoo dugsi dhaxaba saxaafadda bilowday labadaas isku ay qaabilsan kulin bulshada Cabdilaahow haddaan ku yiraahdo da'daydu waxay ahayd ilaa 11 jir haddaan ugu badan 12 jir sawirkii la iga qaaday ma hayay ma nasiib daro Djibouti ayaan ku ogaay isagoo yaala haddaad sawirka anigoo mikrofoonka hor fadhiya la iga qaaday aad arki lahayd impossible waxa oran lahaa aniga hooyaday qaadan weyday markii aan ku wari markii la yidhi inankaaga maanta ka soo hadlay idaacadda way qaadan weyday ilaa ma ay maqashay ogeysiiskii oo leey waxa ogeysiiska idin la socodsiinaya Maxamed Xuseen Cali waayo daadaydu 12 jir meelahaas ay ahayd haddaan ugu batana 12 jir meelahaas ay ahayd raggii xayga maanta ilaahay cimriga u daayay ee aniga dugsiga hoose xisaabtan anu leeymi jiray idaacadda radio Hargeysa ayuu ka shaqeeyaa Maxamed Saciid Maxamed oo marna agaasimaha imkan agaasima ku xigeenaha markuu nagas ayaa kamid ah ragaasi raggii meesha igu soo tababaray ee markan iskuulka dhiganayeen iska dugsiga dhexe ka hoose isagoo Maxamed Saciid idaacadda radio Hargeysa ka shaqeeya ayaa anoo ka hoose biyo dhacayga hoose dhigta ee xisaabta u leeymin jiray kii dhaxnaba isagoo ma leeymin jiray xisaabta Israa'iilta la yiraahdo ayaa leeymin jiray rag badan oo sidaas islaamid Axmed Maxamed Baaruud oo ilaahay caafimaad siiye faaligu ku dhacayo laakiin se alxamdulillaah rabbil caalamiin hadana ilaahay uga sahlay oo jooga ayaa jira oo library-ga haysan jiray oo record aha oo wax alaaliye waxa ajalad taala meesha maskaxda ku hayay lambaradooda aad tira ajalada heesta ay soo saraa barnaamijka ay soo saraa marka ay soo saar lambarkii koray lambarka intaas ay taa kun iyo intaas ay taa la soo ka in 12 jir baan ku bilaabay radio Hargeysa ka bilaabay waqtigii Cabdikariin Xaaji Ducaala iyo qoray ee farsamayaqaan baan tababar u galay laakiin se ragii igula taliyay in aan wariye noqdo oo farsamada ka leexdo waxa kamid ahaa jaamac Yuusuf Xasan Xuseen Cabdullaahi Deeqsi adeerkii oo markaa maamulaha idaacadda radio Hargeysa in ahaa ayaa ragii igula taliyay inaan wariye noqdo oo nin aad u akhris badnaa ahaa oo aad aqoontiisu ay u dhisnay jaamac Yuusuf Xasan oo jaamac Langare loo yaqaanay Cabdikariin Xaaji Ducaale ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye oo isuduuhii warfaafinta ahaa ragii aan ku dayan jiray waxa kamid ahaa Idris Cigaal Nuur ayaa isna kamid ahaa oo isna isuduuha wasaaradda warfaafinta soo han jiray oo isagoo isuduuha wasaaradda warfaafinta hadana u heerka bahalkii loo dhigay wax lagu duubi jiray ee cajal dambe dhax qaadan jiray hadana qaaray isagoo isuduuha oo meesha xukuma ayuu hadana waa nin active ah de wariyana uu hayo waa ninkii oo dhigay maama mi iyo barbarkii ka baxdaa waa bakay la qaleen oo kale marka la yiraahdo kubadda ragga speedka ku hadli jiray isaga iyo speedka ragii hada uu kaga horeeyay malay ragga awke ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo oo suxufiyiinta lagu dayan jiray macallimiinta haya ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo radio Muqdisho aan isku soo gaarnay wax fara badan aan kaga dayday wax fara badanna igula taliyay oonan waliba aanan gaari karin maanta waayo awke waxa uu ahaa waxaan isbarbar fadhiisanay waxa ku soo dhaweeyay isagoo warka akhriya anoo radio Muqdisho jooga ana warka waan akhriyi jiray markaan ku qornaa deetana wuxuu soo qaatay waxaan anagu samayn markaa anu nin yar baan ahaa nin wuxuu ahaa
khabiiru ahaayo deetana markan warka waxay noo akhriyi doonaa axmed xasan cawkaan ilaahay naxariistana ka waraabiyo waraaqaha hor yaala waxa weeyaan warqabadka waxa laga qaadan jiray wakaaladaha wararka taasiyo AFP iyo qayb dhan oo warqabadkii reer ugu shaan jirtay deetana waraaqaha oo soo qaatay warqabadka wakaalada wararka qaada deetana wakaalada wararka ayaa wararka dibadda soo turjuntaa deetana markaas ay u keentaa idaacadda oo deetana meel loo geliyaa qofku wariyuhu meesha loo geliyo loogu talagalay in ka soo qaadan jiray waxa hor yaala waraaqo aanay cidina soo turjumin oo waxa weeyaan marka erey ingiriisi la qoro oo war ah ayaa daash xariijin dibic daash laba xariijimo nacamtii sidan lidaado kale loo qoro ayaa wararkana qaarkood ay ku jirtay marka dhibic kastaaba ama laba dhibcood ay saaran ama hakad iyo kooma ama xariijin aanu ma garanaya waxay ahaayeen terminology amaba xuruuf loogu talagalay oo mid kastaaba macna ay u taagnayd taasoo sideeda u turjumi jiray isagoo live ku hadlaya marka waynu iman doonaa saxafiyiinta maanta inay ku daydaan rag fara badan oo raggii annagana naga horreeyey annaguna aanu ku dayanay ka mida inkastoo maanta dee isbeddel weyne ay ku dhacay cabdillahi sheekh dee kulli barnaamijkood ugu horeysansa waad u soo socotaay marka waxaan galay shaqada 1980 meelahaas adigu 80 baan galay radio Hargeysa waxaan ka shaqeynayay deetana ilaa iyo 986 markaa waa markan jaamacadda galay deetana markaas ayaa waxaan u wareegay radio Muqdisho marka anigoo jaamacadda ku jira ayaa khamiista iyo jimcaha la foolay waxay ku taalay afgooye iyo xamar dhexdooda aniga deetana khamiista jimcaha ayaa waxa lagu qoray warkoo kale ayaan qaban jiray barnaamijka dalabaadkoo kale ayaan qaban jiray barnaamijka amuuraha Afrika oo kale ayaan qaban jiray barnaamijka dunida carabta oo kale ama dunida muslimka oo kale ayaa waxyaabihii aan qaban jiray reer Muqdisho ka qaban jiray kamada inta barnaamijyada labada cisho ayaa lagu soo koobi jiray deetana markii dambe hadana waxaan raadsaday si noloshayda aan u kabo maadaama family-gaygana aabahayna aan noqleen anigu aan ka mas'uulaha xarkan mushaharkaygii waxaan uga tagay radio Hargeysa inay ka qaataan xaafadeedii inay ka qaadato deetana waxaan raadsaday shaqo kale oo ah in shaqo layga siiyo telefishinkii national TV-gii Soomaaliya ama telefishinkii qaranka ee Soomaaliya deetana nin aad u muxtaram aad aan ninkaasi aan abaal badan u hayo oo xayd la yiraahdo aan filayo inuu ahaa reer Sool inuu yahay nool yahay salay sheegay xayd ninkaasi la yiraahdo ilaahay cimriga iyo caafimaadka wada nool yahay u daayo ninkaas oo iyadoo idaacadda muddo layga celceliyay waxa joogi jiray nin falax la yiraahdo agaasimaha idaacadaha ayaa waxaas laga dhigay agaasimiinimadii ninka la yiraahdo xayd inta maalintii ugu horeysay uu tagay shaqadaydii horbayga qoran sidaasaan ku tareeyo shaqadii bedelkii ku qaatay maalintii aan doontay telefishinka shaqadiisana ragga ay gacan qabtay ee aadkii soo dhaweeyay waxa kamid ahaa yaasiin xaaji ismaaciil jirde ilaahay naxariista jannaha ka waraabi oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta waxaana wasiir ka ahaa maxamed cumar jees deetana waan u soo galay yaasiin xaaji ismaaciil waxaan aad isugu baranay faalada warka marka la qoro yaasiin xaaji ismaaciil baa la soo marin jiray deetana yaasiin xaaji ismaaciil baa jeegrin jiray ninka wariyihii yaasiin xaaji ismaaciil buu soo fadhiisan jiray faalada ayuu ka hor akhri jiray markuu faalada akhriyo ayuu ama u sixi jiray ama waxbuu ka bedeli jiray yaasiin xaaji ismaaciil nin creative haayo wax abuura oo wariye oo madaxna cad wuxuu warinimadina garanaya oo qof kasta la garanaya oo madaxweyne wariye u soo noqday deetana faalada laygu soo qoray faalada warka deetana faaladii anigoo sidaan la soo galay faaladii markii deetana aan la soo galay yaasiin xaaji ismaaciil jirde ayuu inaan yarba ayaan hayo marka nin yar oo soo adeer maxaa doonaysay markaasaan ku yiri faaladii warkaan sidaa waxaan arkay nin yar ana marka inaan wariye iimu filanay deetana inta ay igu fadhiiso waan fadhiistay deetana markaas aan fadhiistay akhri waan akhri deetana markan faalada warka markan waxoogaa wadaba waxa khalad ku jira ma quraan wasiir uma ku dhaano sentence-kaas sidaas uu qoray laakiin anigu waxaan u bedel lahaa sidaa hakadkii full stopkii koomihii Soomaalida ay carahan noqotay fooq bacdo aduu erey kasta xuruuftani waxa ay leeyihiin hakadkii wada kana sa paragraafkii wad wariyuhuna inuu kala muujiyo ayaa muhiim ah waan kala muujiyo inta ku dhahdaa wasiir waxaan sentence-ka anigu waxaan ku bedeli lahaa ereyada noocaasiya
marka dhamaystiray buu adeer wax ka xageed meel bas shaqeeyay warfaafina kasan ku dhahay radio Hargeysa laga soo bedelay yatana markan aabahay u sheegay buu gartay aad buu soo dhaway adu markii dambe Yaasiin Xaaji Ismaaciil wuxuu markii dambe igu markuu arkay sidan macamtii wax u abuurayo wuxuu igu maalinta leedahay ugu soo haay macamtii toos u gal adigu saxo markuu arkay sidan anu wax u saxanayo macamtii oo qof mas'uuliyadda saxaafadeed in qof shakhsi saaran qofka ay saaran tahay macamtii waxad akhriyayso haddaanad adigu fahmin bulshadana ma fahmi karto marka haddaan iska akhriyo oo torrog iraahdo dee dadkii inay ku fahmayaan anigu inay fahmaa marka aan anigu fahmo ayaan bulshadana fahamsiin karaa markaasaan ka codsaday telefishinka markaasuu telefishinka deetana ogolaaday sii fadhiyay buu yiri maxamed cumar jees buu tagay warqad yar soo guri cali sheekh axmed carraale ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo oo aan aad ugu ducaynayo oo raggii gacan qabtay ahaa radio Hargeysa studio ka soo ahaa waaxdii qoraalka ee Soomaaliyana haystay ee wasaaradda warfaafinta dalashahana halkan ka soo jeeday cali sheekh axmed carraale ayaa oo waqtiyo badan iga gacan qabtay qoraallo uu igu qoray tafatire buug iyo saxab buug labadaba oo wax fara badan marka iga caawinayay ayaa deetana xafiiskiisii xogeyntiisii warqada ku soo qortay Yaasiin Xaaji Ismaaciil qaaday wuxuu tagay markii maxamed cumar jeed daqiiqadii buu ku soo socay telefishinkii baa lagu qoray xasan cali herneri oo ha xogeyaha joogtada ayaa markii aanu geeyay xasan cali herneri lacagtii buu qoray markii bay saasan telefishinka ka mid noqday deetana Faysal Maxamed Cabdi Fadfadle oo istoo barnaamijada sidaasan telefishinka Soomaaliyana uga howlgalay si fiican waan u garnay maxamed aad iyo aad balmaadsan tahay maxamed waxa kale aan ku weydiinayaa marka ka imaado saxaafadda aad halkan iyo goobtii shaqada ka bilowday meelaha kale aad ka soo shaqaysana maxaa ka mid marka radio Hargeysa iyo radio Muqdisho laga reebay intaan ka soo hadlay Somaliland National TV sanadkii 1996 ama waxaan ka shaqeyn jiray ilaa 2005 oo raggii wariyaashii bilaabeen aan kamid ahaa telefishinkii la oran jiray Somaliland Space Channel oo Hargeysa television markii ugu horeysay la oran jiray oo fooq u baxsan suuqa Hargeysa ku lahaa markii hore television ba jiray markii dambe xagga sal loo soo reey markii dambe aduu Space Channel ka markii dambe labarka ayaa magacaasa loo bixiyay waxa aan jecelahay inaan ka hadlo wargeys la yiraahdo markii wadanka la soo galay 26 June newspaper oo magaca wasaaradda warfaafinta ku soo bixi jiray oo raggii isna bilaabay aan kamid ahaa oo Cabdi Maxamuud Xarbi uu noo madax ahaa ilaahay naxariistii jannada ka waraabiye oo Axmed Xuseen Warsamana aniga Axmed Xuseen Warsamana soo saaray ka ahayn timi cadaan ku soo saari jirnay wargeyskaasina waxa jiray wargeys kale oo nu bilownay oo marna tafatirano ahaa ninka la yiraahdo Axmed Cirro oo la oran jiray Horn of Africa ama wargeyska geeska Africa oo markii dambena isku bedelay Maandeeq ragii soo dhisay ahayn oo markii dambena isku sii bedelay Dawan ragaana ragii rugundhaxaadka oo soo bilaabay wargeyskaas geeska Africa maanta Dawan magaciisa cigaal baa u bixiyay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo naxariistay ayaa u bixiyay magaca Maandeeq magaca Dawan waxa uu bixiyay wasiir Geljire Abdullaahi يا مقع الدولة waxaanan madax ka soo noqday radio Hargeysa oo in badan isku barnaamij soo ahaa agaasimo ku xigeen ayaan markii damana iyo isku barnaamij Abdullaahi Maxamed Cali ko jeeda agaasimo ka dhigay iyo agaasimo ku xigeen lahayn inta isku barnaamij labada title ka raaciyay idaacadda radio Hargeysa ragii abuuray baan kamid ahaa koow ka ahaa subaxnimo in idaacadda radio Hargeysa ay soo gasho way idaacaddu kooda horey soo gali jirtay subaxnimo idaacadda radio Hargeysa ana sameeyay marka subaxnimada idaacadda radio Hargeysa sameeyay waxa sameeyay oo fikirkeeda lahaa iyo maskaxdeedaba barnaamijka la yiraahdo subax wanaagsan barnaamijyada kale ee magacooda iyo abuuristooda baan lahaa waxa kamid ah barnaamijka la yiraahdo xulashada radio-ga oo markii aan abuuray aan sarajo ku qoray iyadoo waddanka isku bulbulsanayo timcadaan nalo aan ku qoray ereyga ah iscasaynimo quruxba oo dood 3 bilood ay ka dhalatay kale barnaamijyo fara badan oo idaacadda radio Hargeysa aanu ka sameeynay way jirtay oo waxa weeyaan cidna uma maqna ceelna uma maqna wadanka maadaama rag baa u soo dhintay rag baa dhiigoodii dheecankoodii waxa weeyaan hadduu ilaahay dhibaatooyin fara badan oo dadka soo maray naga badbaadiyay inaguna waxa weeyaan rag baa wadankan u soo dhintay
qaar far badan oo soo halgamay maanta way nool yihiin inaguna aqligeeni iyo cilmigeeni iyo xooggeeni inaan u rogno waxaan ku dari karnaa telefishinka qaranka raggii warka abuuray baan kamid ahaa ee xiliyada uu baxo uu sameeyay dhisaanka lahaa wararkii in badan madax ka ah warka walow maanta warar kalena ay jireen oo carabi ingiriisi oo maanta ingiriisi ma jiraan laakiin carabigu baa malaha baxasan ayaa baxay aad iyo aad balmaasan tahay maxamed dadweynuhu in badan waxay isweydiinayaan waa maxay saxaafadu iyo qawaaniinta looga baahan yahay anshaxeeda iyo duuduub ahaanba waa maxay saxaafadii maxaa looga baahan yahay horta cabdilaahow saxaafadda ama warbaahinta iyo wariyaha ama saxaafadda iyo suxufiga ma kala hadhaan marka laga hadlayo marna gaar baa loo qaadan karaa saxaafadda loo qaadan karaayo ama warbaahinta loo qaadan karaa suxufigana waa la qaadan karaa laakiin marka saxaafadda kaasad wariyiin ood ka hadlaysaa oo macallin wax barasho saxaafad wariye iyo warbaahin marka aan warbaahinta ama saxaafadda soo qaato waa sawirka iyo sawraca siday rag fara badan uga hadleen ama aqoon-yahano ha noqdaan ama abwaano ha noqdaan ama suxufiyiin ha noqdaan oo ama kuwa caalami iyo kuwa muwaadiniina intaba ha noqdeen marka ereyada saxaafadda ama suxufiga ay ka hadlayaan macno culus oo badan ayaa ay leedahay de saxaafaddana waxaa lagu tilmaamaa maanta awoodda afraad haddaanay saddexaadba soo gelin ee caalamka waa awoodday leedahay baa markaa la tilmaamaya awoodaha dee waaweyn marka dunida la eego dee dadyoga ku nool adeegsiga waxyaabaha adeegsadaan oo kale marka warbaahintu waa sawirka iyo sawraca wariyaha oo car iyo bayla soomaaliga waad garanaysaa waan malanayaa jeedalkii waad garanaysaa saxaafaddu wax fara badan xaajooyinka tusaale ahaan xaqiiqooyinka muuqda waxa uu suxufigu aaminsan yahay oo kale maranka suxufigu uu yeelanayo dareenka uu leeyahay kale ee isaga ku abuuran waxa uu difaaco iyo dadnimada guud ahaan ayaa ay noqonaysaa saxaafadii amtii marka hoos loogu daadego ya wariyihii baa kasoo dhex baxaya markaa saxaafadii waxa weeyaan sawirka bulsheed nacamti waa sawirka bulshadu ay iska daawanayso nacamti bulshada ayaa saxaafadda ama warbaahinta iyadoo iska daawanaysa ka soo gudbiyaana waa suxufiga saxaafaddu waa xaqiiqooyinka ka jira dowladdu maaha xukuumaddu kaliya waa baarlamaanka golaha wakiilada golaha guurtida shacbiga hay'adahoo dhan isku soo wada qaad xisbiyada isku wada qaad waa ummad dal ku wada nool ayaa dowlad la isku yidhaahdaa marka waxa weeyaan saxaafaddu waa xaqiiqooyinka ka jira dowladda dalka iyo dadka waana runta waayaha haddii aan sii faahfaahiyo waa jeedal qac kulul jeedalka marka qofka lagu dhufto waxaanu kuliyay cabdilaahow waxaa tilmaamay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye oo suugaan ku tilmaamay oo suugaantaana wax ka akhriyey maxamed ibraahim warsame hadraawi wax fara badan baa laga kororsan karaa dadka abwaanada ah amaba suugaanyahanada ah adigoo suxufiya ninka suxufigiina waa in uu noqdaa nin aqoontiisa gaar iyo tiisa gudba ay badan tahay nacamtii inaanu ku koobnaan aqoon kale suxufigu inuu caafimaad ka barto si guud u barto suxufigu inuu barto suugaanta inuu barto suxufigu inuu beeraha barto waxyaabo fara badan suxufigu inuu dhaqaalaha wax ka barto suxufigu waxyaabo fara marka dambe markaa takhasus samayn karaa oo haddaan maanta dhaqaale barto waxaan noqonayaa weriye analyse gareeya oo faaqida marka loo baahdo haddii dhaqaalaha wax ka jiraan weriye siyaasadda bartay oo analyse gareeya arrimaha siyaasadda inkastoo weriyayaasheenu inta badan aanay isku taxallujin oo imika dee waxaad arkaysaa wasaaradda warfaafintu waxay dirtaa suxufiyiin bay dirtaa
jaamacada ayaa loo diraa haddana anigu ma arko suxufiyiin intaasoo suxufi oo wax la geliyey juhdi la geliyey oo jaamacada loo diray oon iyagoon awoodi karayn nasiib shaqaale kale oo jooga ka yeeshay in jaamacada ay ka soo baxaan in haddana maanta rag badan iswada raaci maayo wasaaradda warfaafinta kaliya maaha laakiin wasaarado badan waxa weeyaan waa in wax ka bedelaa wixii hore uu jiray ninka jaamacad ka soo baxay dee hadduu intuu jaamacaddii ka soo baxo halkii ii soo fadhiisto oo afartii erey uu ii akhriyi jiray iyo tibarigii hadduu tii un ii soo akhriyo hadda jaamacaddii cabdilaahi waxba uguma taallo waa barkuma taal marka qofku markuu jaamacaddii soo barto hadduu dhaqaalo soo bartay dhaqaalihii barnaamijkii dhaqaalaha waa inuu wax ka bedelaa hadduu dhaqaalo soo bartay oo wasaaradda dhaqaalaha amaba wasaaradda maaliyadda joogo waa inuu fikir oo wax creative garaya oo wax abuura oo wax keena marka suxufigu wuu macno badan yahay cabdilaahow sheekada waan kugu dheereeyey waxaan ku waa saxaafaddu waa jeedal qac kulul baan kuri oo ka qaylisiiya layliga biyaha kajkiisa ku jira ka dida waxay wax u soo bandhigtaa hab iyo hanaan hubsiimo iyo miyir iyo miisaan uu ku dheehan yahay nacamtii ninka suxufiga ama saxaafaddu waxay wax u soo bandhigaan wixii wax miisaaman bay dadka u soo bandhigaan wax maskax miyir qabta lagu eegay bay dadka u soo bandhiga oo dhinac walba laga eegay ay dadka u soo bandhigtaa talooyin iyo tusmooyin ayaana marka dambe bixisaa hadday mucaarid tahay ay wax ka sheegayso iyo hadday muxaafid wax ka sheegayso saxaafaddu hadday tu dawliya tahay iyo hadday tu gaara tahayba intuba marka dambe ay waxaa ka hadasho ee si miisaaman uga hadasho oo si xaqiiqa ay uga hadasho ayay marka dambe talo iyo tusmooyin ay rasaan marka taladaas iyo tusmadaas waxay bixinaysaa waxa halka looga baahan yahay wariyuu heerka iyo levelka looga baahan yahay in uu wariyuhu taagnaado waa meel sarreysa wariyuhu maadaama uu talo iyo tusmooyin uu bixinayo aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan ku weydiin lahaa maxamedow had iyo jeer sida ay bulshadu yidhaahdaan fanaaniintii hore fanaaniintan maanta joogaa inkastoo cod macaayin oo fanaaniin badan oo cod macaani jiraan haddana codadkii dhagahayaga berigaa kusoo dhacay baanu tabaynaa fanaaniinta dambe ma gaadhaan taa mid la mida wariyayaashii hore ee lodkiinu uguba yaraaya ardayda u noqonayay marka loo eego kuwa maanta jooga inkastoo jiraan inamo badan oo teknolojiga aad ugu dadaalay oo saxaafadda aad ugu dadaalay oo jaamacada galay oo iskuulla saxaafadeed galay oo hadda jira oo hibadii le saxaafadeed ku abuuran tahay haddana waxay leeyihiin halkii nooma aha oo halkii wariyaashii hore gaarsiiyeen raggii aad garanaysa aadan nuux dhuule iyo axmed xasan cawka allah u naxariistay iyo haddii bedanka leeyahay rag badan oo dee jira xaaji cabdi ducaale oo dee aabbihii saxaafadda iyo halkii nooma aha bay leeyihiin waa maxay sababta horta cabdilaahow horta qoladana xoog uma dhaliili karno adduunyaduna waa tadawur waxa waa horumar bay samaynaysaa afrikana waxaa ragaadiyey dhibaatooyin fara badan oo dagaaladu ay kow ka yihiin oo xasadku uu kow ka yahay oo isxintanku wax noocaasa ayaad mooddaa in dalal fara badan ay hadheeyeen oo ay ragaadiyaan waxyaabaha ilaahay laga magan galo ayay dagaalada iyo colaaduhuna ay ka mid yihiin inagana waxaad ogtahay duruufo iyo dhibaatooyin fara badan oo ina soo maray oo dadkeena soo maray laakiinse markaad waktigii hore eegto iyo waktigan maanta horta marka xagga tiknolojiyadda amaba aqoonta la eego faraq weyn baa u dhexeeya berigaa hore ninka jaamacadda ku jira marka macallinku lectureka uu bixiyo waxa uu ka soo qoran jiray 2 saacadood ee macallinku lectureka ku jiro library-ga ayuu ka soo qoran jiray ama 2 saacadood ama 3 saacadood inta khudbad ku akhriyo may jirin telefoon muu jirin reerka telefoon yar oo guri dharanta ka hayo oo xadhig lagu geliyo landline-kii ayaa al reerka telefoon buu leeyahay maanta halka la taagnaama ku sheegaya waxa weeyaan ninka suxufigiina beriga muu haysan aaladda maanta sekinkaasiba aad wax ku gudbinayso ama ilbiriqsigaa wax ka sii yar baa dhigi
البريس هدي اللي زيك اللي تجيبي حتى ووح البريس وح ووح كسي سكن كاس سكن كان قادنا نقول سكن كا واحد ما تكون بالبنز برجع اللي يقول بالبنز تلفزيون كواحد لقى يا بقف ورك الدرايو 10 سنوات مش 20 سنوات كهر سنة 10 مريض أيا waxaan jeedaa 30 mirid iyo wax ka sareeya ayaa warka lagu soo gudbin jiray maanta second gudihii ama daqiiqad gudaheed ayaa adigoo jooga Ceergaabo ama adigoo jooga London ayaa markiiba lagu soo dhigaya ama aad qofka marka dadka bariga joogay waxaad moodaa wax fara badan bay dadka maanta jooga ay kaga duwanaayeen bariga hore saxaafadu aan dilucda hadalkaagu yimaada waayeen saxaafadu way ka koobnay saxaafada maanta saxaafada meel kaliya laga hagi jiray saxaafad bareefadi ma jiraan uu waqtigan garanayo saxaafad bareefada oo shicib ay leeyihiin ha ma jirin Cabdilaaw waxa jiray saxaafad ay ma gacanta ku hayso dawladdu ama xukuumaddu waxa weeye saxaafadaas wixii xukuumaddu ama dawladdu ay ogoshahay baa saxaafadaasi ka bixi jirtay ama wargeysa noqdo ama idaacada ha noqdo ama radio hargeysa ha noqoto ama radio muqdisho ha noqoto ama wargeyskii ogaal buu habalmay iyo adu wargeysidii laba wargeys baa jiray oo markii dambe mid kala lagu soo daro sidii wax laga yara dhigay kulul laga dhigay laakiin waxay dawladdu wax ay ogoshahay baa ka bixi jiray haddana iyadoo ay cayn ka tahay ayaa dadku waxay ku xidhnaayeen saxaafada nacamtii meel kaliya laga hagi jiray waxba maanta wax la sameeyaa fanaaniinta wax la sameeyaa fanaaniintu iyo wasaaradda warfaafinta iyo fanaaniintu isku mid bahaano lama kala qali karo waqtiyada qaar inagu waynu kala qalnay laakiin wasaaradda warfaafinta iyo fanaaniintu ma kala maarmaan ama TV ha noqoto ama idaacad ha noqoto waxa ka baxbado wayigu waxa wasaaradda warfaafinta ka baxa ku dhaxaad iyaga oo ragga isduwayaasha ama madaxda ka hina wax way yaqaaneen waxaan garanayaa halkaas nacamtii waxa dhadhankii macnaha uu sameeyay jiray waqti halkaas بريتولا الهول لقبنايا شربا لقبنايا هول مهم الشعبي اللي جوتش هنا لقبنايا أخرين واحد لقبنايا تصالحان لدنيا إن دتك لوجتش هي مالا بيريه من فلان أي نقولنا إسكا والله سمي كرامات مدحوينه كلامكم حسميين شغال قرن توب وحيابه شغال قرن تساوي هذين واحد لوجتش هين كرا يا ودadkii shaqa qartay isku kaale shacbigiina waa la raacay wax leey ciidamadii markaas wax lagu jeeyin karaa intaas oo guri oo ay leedahay dawladdu guriyihii wasaaradda warfaafinta guriyihii ciidamada qaranka guriyihii ciidamada qaranka oo dhan ayaa la dhisay saas wax lagu kicinaya koonfurta Hargeysa waqooyiga Hargeysa bariga Hargeysa galbeedka Hargeysa sidaas loo dhisayaayo inta magaaladii caasimadda ahayd iyo kuwii kale goboladuba sidaas ay ku fudayaan meel kasta loo abaabulayo marka fanaaniinta taasoo kale looga faa'iideysan jiray iyo waxyaabo kale oo ama waxbarashadii ha noqoto oo dhiirigelintii waxbarashada oo ardaydii lagu dhiirigelinayo ama shaqadii oo dadkii lagu dhiirigelinayo waratadaha ama shaqaalihii dawladda oo shaqadii lagu waad aragtay inta heesood shaqo ku saabsan ee la sameeyay ee marka aroortii la saaro ardaygu uu dareemayo inuu waxbarasho ku socdo ardaygu uu dareemayo inuu wax baranayo hooyadu ay dareemayso in ilmaheedu u kacdo ninkii shaqaalaha uu og markuu idaacada ka dhayso oo arag garanayo markiiba heestaas inay tahay shaqo ku shaqaalaha dawladda ya shaqaalihii dadka iyo waxaan nahay wad garas Cabdilaahi Qarshe marka waxa la oran jiray fanaaniinta kale waxa maanta la qabanaya halka iyagoo wada fadhiya abwaankii uu sameynaya wixii dhag midhihii buu qoraya muusigeystihii uu raacinaya kabankii baa la soo qaadaya kii codkiisa waa la tumaya marka la tijaabiya daqiiqadiiba waa maanta hada ayaa la gelaya tiyaatar kan oo kale oo qalabkii u yaalo ayaa markiiba lagu tumaya dhag aroorta waa la saaray taasoo dadkii shicibkiisa weydiinaya waryaha astan iyo waxaan maanta isla goorma haysan la sameeyay goormaysan waa daqiiqadaba in meesha lagu sameeyaa la moodayo nacamtii dadkii marka waxay noqonayaan wax jihaysan oo heestii la hadal haynayo oo wixii maalinta la qabtay la hadayo shaqadii ku soconayso shaqadii ay ku soconayso marka ninka wariyaha suxufiga ahay barigaasi wariyaashu way tartami jiray wariye kastaana wuxuu ku dadaali jiray wixii lagu tartami jiray lagu tartamayo inuu kasbado waxa lagu tartamayaana waxay ahaan jireen shacbiga ayaana wariye kasta magaca iyo sumcadda uu ka heli jiray
sida fanaaniintuna magaca iyo sumcadda ay shacbiga u heli jireen sida maanta oo kale loogu baahan yahay siyaasiyiinta iyo xisbiyadu in magaca iyo sumcadda ay ugu tartamaan shacbiga gudahooda maamtii shacbiga ayaa magaca iyo sumcadda laga kasbadaa laga helaa ama xukuumad ha noqoto ama suxufi ha noqoto ama shacbi ha noqoto ama ganacsato ha noqoto ama asxaab ha noqoto waxa weeyaan kullu sumcadda waxa ka doonaya shacabka kuwa laga doonaya waa maamtii ereygii ugu horeeyay ku bilaabay waxa ahayd saxaafadi waa sawirka maamtii markasta shacbigii baa la danaynaya markasta shacbiga la danaynaya marka sidaasay berigaa horena taasi u ahaydo magac iyo sumcaddan iyo magacan aanu leenahay dadka ayaan ku kasbanay saxafiga dalbo sulxiyo ka tali nabad iyo samaha oo noqo suldaan isku sabab bulshada xilka aad sidana sahal maaha kara saxafiyo